halkani waa halkii wiilwaal taariikhda Soomaalidu wuxuu kaga qoran yahay bayt cad meel walba kaga qoran qof Soomaaliyeed oo wiilwaal garanayna oo malayn ma inuu nool yahay fardoolaydan ka bilaabaya sababtoo waxay xusuusinayaan wiilwaal bay xusuusinayaan waxa kale ay xusuusinayaan Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo fardihiisii bay xusuusinayaan Suldaan Nimcaan Axmed Shabeel ayaa maanta lagu caleema saaray duleedka magaalada Shabeelle munaasabadan caleema saarka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta sare ee deegaanka Soomaalida dibaano ka socday xukuumadda federaalka ee Soomaaliya siyaasiyiin ka socday Somaliland odayaasha dhaqan ugu horeeyo garaad kulmiye garaad Maxamed Dool xildhibaano iyo badiba bulshada ku dhaqan magaalada Shabeelle Suldaan Nimcaan Axmed Shabeel ayaa loo caleema saaray inuu noqdo hoggaanka dhaqan ee beelaha Sacad Yacquub ee beelaha Bartire garaad kulmiye garaad Maxamed Dool iyo dhammaan odayaashii ka soo qayb galay ayaa si ugu caana shubay Suldaan Nimcaan Suldaan Axmed Shabeel oo noqon doona suldaanka hoggaamin doona beelaha Sacad Yacquub marka aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa Nimcaan ilaahay waxaan leeyahay xilka weyn lagu idmaday ha kugu asturo waxaanu ballan qaadaynaa inaan kugu garab istaagayno dadkana sidii odayaasha hore tilmaamaan dardaarankooda hal la qaato ummaddu kaliya waxay wax ku noqon kartaa ismaqal marka intaasaan leeyahay waana u ducaynaynaa waxaana kula dardaarmaynaa hal wada garab istaago nin halkan ka qaftay baa yiri xoolayn oo baahnay qoodigu u baahan yahay qoodiga ma xoolaha waxa la siinay ma aha qofka waxaynu u baahanay inaan baawar garayno aniga waxaa iga go'aana hashi koowaad baan bixinayaa ee lagu xoolaynay 100 halaadaan u xarayno waxba inagayna ma yeelayso maraynu reerkoodii siina hasha koowaadna aniga bixinaya aad iyo aad baad maasantiin kolay halkan ma soo istaagin hadal badan inaan ka yiraahdo maadaama ay madashani tahay madal dhaqan wala dhameeyay waxa weeye waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan dhaqanka Soomaaliyeed ee madashan fadhiya anoo kala qaadaynin ka kala yimiday wadanada kala duwan ee jaarka nahay kuwa dalkeena iyo kuwa deegaanka haddii aan inta kaga gudbo waxaan ka salaamayaa halkan garaadka guud ee beelaha kuumade garaad kulmiye garaad Maxamed garaad Dool u ducaynayna insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo sudaanka cusub Nimcaan baan u ducaynaynaa waxaana inaga filan ducadii Umar iyo dardaarankii Sheekh Umar baan ku daynaynaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxaan leenahay sudaanka cusub ku soo dhawow bahda dhaqanka waan ku faraxsanahay dhalinyaro inay ku soo biirto aqoonyahana bahda dhaqanka inay ku soo biirto aad baan u jecelahay oo aad baan maartay u soo dhaweynaynaa ilaahayna xilka kugu asturo adigana waxa ku faran inaad noqoto caadil reerka dhexdiisa iyo ummadda Soomaaliyeed ee aad magaceeda wadataba inaad caadil ka noqoto insha Allah intaas aan kula dardaarmaynaa badin maaya hadalka marka koowaad waxaan fariin uga wadaa Suldaan Nimcaan Axmed Shabeel Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Badaan uga wadaa hambalyo iga gaarsiibiyay waan ka gaarsiinayaa Suldaan marka fagaaraha inaad ka ogaataan jecelahay suldaankuna si fiican buu kugu soo hambalyeynay anaguna inta kale oo magaca suldaanada kale ee abaskuul iyo guud ahaan ku hadlaya magaca Soomaaliyeed hambalyan ku leenahay garabkaagaan taaganahay hadalkuna waxa weeye waa duciyo dardaaran weeye goor gaaban hadalkeenda gaaban suldaanka waxaan ku soo dhaweynaynaa bahda dhaqanka Suldaan Nimcaan waxa leenahay soo dhawow waan kula shaqayn doonaa garabkaagaan taaganahay waxaan u duceynayaa suldaanka suldaan xilkaad qaadi ilaa kuga asturo مسؤول نقول الله سلامة صالحي وسلامتين وحى شرف وين إياه أنا وكسعود قلها ودتشجع قرن كإثيوبيا قضية إيو جرادة إيو سلادين تا إيو قورت دون أيهين ودبحات كودتشجع نبض السلدي جوه وحى شرف وين إياه أين هل كان ما أنت يدين للجوجو ولبا waxaa igu soo sharfay saaxiibkay Cabdi Xaashi Axmed Shabeel oo markaan magacaas sheego aad xusuusanaysiin suldaankeenna cusub Suldaan Nimcaan Axmed Maxamuud waxaanu ku leenahay suldaan hambalyo beesha aad ka soo jeedo oo qura mas'uulka ma tihid
maanta sidii lagu caleema saaray ee lagugu caanamaalay waxaa tahay suldaan Soomaaliyeed. halkani waa halkii wiilwaal taariikhda Soomaalidu wuxuu kaga qoran yahay bayt cad meel walba kaga qoran qof Soomaaliyeed oo wiilwaal garanayna oo malayn maayo inuu nool yahay uma baahna in la sii sheego taariikhdiisa hore isu qortay. waxaan kula dardaarmayaa suldaan nimcaan waxaan leeyahay suldaan nimcaanow ilaahay wuxuu yidhi waan karaameeyey bini aadmiga karaamadaasi qof walba way saaran tahay. beesha Sacad Yaaquub intay isu tagtay ayay ku soo doorato karaamadoodii bay ku dursaartay karaamadoodii bay seetaa markay ummadu qof doorato waxay seetaa karaamadiisii uga horta inaad seeto karaamadii beesha Sacad Yaaquub oy karaamadoodii ku saareen. waxaana la xasuusataa ood mar walba ku haysaa maskaxda xadiiskii rasuulka محمد صلى الله عليه وسلم إيها انصر أخاك ظالما أو مظلوما ولا الكاوهيلي هدو قردري هي هدي لك قردري هيبة. أنا وحن سلطانك همبليان لا همبليو وحن كلون وجود عيني أنتي دعيسي يا صلاة دينا أنتي دعيسي الله أقبله أنتي وأنا هيدي وسوتشيدين يلا الله كو أنفعه قرب كاغان هاي ومال الدعاء يا مال دردارنون هل دقيقة نوع كفلن تدعية دردارن سلطان كمان دعينا حلك الله كاسترو قرب كيس الله قالوا ومد الله سخره حلك وقاضينا إلهي قرب في عنا هو نقضه أنت ماشى وعسكون نمد إن آن سلطان كينا سلطان نمعان أحمد أنكو عن شبنو سلطان كمان دعينا وأنا ندردار منا waxaan leenahay suldaan ilaahay xilka maanta lagu caleema saaray ilaahay kugu asturo garaadka Soomaaliyeed garaadkuliye waqtiga taagan salaadiinta siyaasiyiinta oo ugu horeeya Shabeelle walaal xukuumadda deegaanka Soomaalida xildhibaanada federaalka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Shafuur Cadar xildhibaan Triig dhammaantiin iyo hooyooyinka gabdhaha iyo dhalinyarada dhammaantiin bood maalintii ka soo qayb gasheen erayga kulmadahan waxaan moodaa inuu halka meeshaan ku cusub yahay annagu waxaan ka nimid meel kulmada ninkii ka hoos maray $500 lagu ganaaxo marka magacaas waa lagu liibaanay howlo badan baa lagu qabtay East African waa lagu xukumaa nimcaan marka waa qiyaasi inuu wax maagan yahay tolo mukuraasti Jubbaland uu socdaa islaha laakiin maanta hadii beesh halkan ay ku ekeysay horta waxaan leenahay beesh horta way maasanta برتقال هان مركلو إيوه لمان دعنو وحين مثلنا أمد الصوماليات وحين كاغن بجمهورية الفدرالية الصومالية بلغوريا يجاس غوري لكبتر سرين وحين مثلنا قرن الصوماليات يقودهان إسرك الصومالي ومشوا دقني هاي أنت كذب جراد كلمية جراد محمد جراد دول أو جراد الصوماليات gaar ahaan ee dowlad deegaanka Soomaalida guud ahaan isirka Soomaaliya meesha uu ku hadlo salaadiinta kale ee saaxiibadii ah ee garabkiisa taagan kuwii ka yimid Somaliland kuwii ka yimid meelaha kale ee dowlad deegaanka Soomaalida dhammaantiin waxaan idin leeyahay soo dhawaada waana mahadsantiin annagu waxaan u nimid caleema saarka suldaanka suldaan Nimcaan Axmed anu Nimcaan saaxiibeen nahay waxaynu isbaranay 2002 arday been wada ahayd nimcaan horta nin yar ma aha nimcaan beeshu mar hore aan rabay inay doorato annaga markaynu Nairobi joogno ardaydana wada ahayn asaga iyo walaalkii ninka la yiraahdo Abshir Axmed Nairobi aynu wada joognay arday been wada ahayn horta markii koowaad wuxuu sameeyay markii laga soo tago integrationkii isdhexgalka uu sameeyay dhalinyaradii xaafadda buurta mideeyay odaybuuna meesha nooga ahaa nimcaan marka waa qiyaasi inuu wax maagan yahay
toro mukuraasti jubbaland ugu socdaan islahaa laakiin maanta haddii beesha halkan ay ku ekeysay horta waxaan leenahay beesha horta way mahadsanta soomaaliya guud ahaan xiriir buu leeyahay kenya xiriir buu leeyahay anigu waxaan isleeyahay waa the right person oo lagu soo dari lahaa dhaqanka odayaasha soomaaliyeed ee dowlad deegaanka annagu wafdi intaa ka badan aynu ku imaan lahayn laakiin dalka shaqo badan baa ka jirtay wasiirraa imaan lahaa oo heer yacni dowladda jubbaland ah iyo heer yacni dowladda federaalka iyo ambaasadoro waqtiga cadiga ahaa anaga naftigeenu shaqooyin badan baa leeyahay shaqada waxaa ugu soo tagnay dee meeshaan deegaankan salaadiin badan baa lagu caleema saari jiray laakiin nimcaan dee anigu exceptional buu noo ahaayo maadaama uu asaga nala joogay qalbiin uu nala joogay sidaa daraaddeed baa halkaana keentay doorasho deegaankaygu anigu waa jubbada dhexe gabadha walaasheen doorasho deegaankeeda waa jubbada hoose rag kale oo ka yimid kenyana way jiraan marka suldaanku dhul aad u baaxad weyn iyo dad aad u baaxad weyn buu suldaan u yahay waxaan rajaynayaa suldaanku inuusan ku koobnaan doonin kaliya jigjige iyo dowlad deegaanka soomaalida ay ku koobnaan doonin uu noqon doono suldaan kii gaar ahaan hadda anagu sacad yacquub beeshaan hadda asaga suldaan ka soo jeedo ee loo caleema saaray inuu shaqooyinkiisa iyo howlkarnimadiisu ay ahaan doonto meesha la yiraahdo ee jubbaland iyo soomaaliya guud ahaan iyo kenyaba annagu waxaynu ka nimid maanta dhan waxaa maqlayay qabaa'ilada soomaalida oo aada loo kala saarayo ereyga kuumadahana waxaa moodaa inuu halka meeshaan ku cusub yahay annagu waxaan ka nimid meel kuumada ninkii ka hoosmaa $500 lagu ganaaxo marka magacaas waa lagu liibaanay howlo badan baa lagu qabtay east african waa lagu xukumaa marka magacaas waxaana ka cararayna waxaan rabaa si daacad ah inaad ugu shaqaysid reerkan annaga waxaan ugu imaanay waddankeeni xalfadan waa adiga sababta waxaan rabnaa reerkan si ilaahay ogi inaad ugu shaqaysid bismillaahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa culumudiinka waxaan kaloo salaamayaa odayaasha dhaqanka waxaan kaloo salaamayaa siyaasiyiinta waxaan salaamayaa dhalinyarada waxaan salaamayaa dumarka qoraxda taagan oo alalaasaayo sabcinaayo si gooni baan u salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa baxda saxaafadda ayagana oona si gooni ah aan maanta xalfadan kaga qayb galay waxaa kaloo si gaar aan u salaamayaa garaadka guud ee beesha bartire garaad kulmiye waxaan leeyahay garaad guuleyso waxaa kaloo halkan ka salaamayaa oo si gooni ayadana ah oo hadda xoogaa hadallo laga dhahay beelweynti kuumade annaga kuumadaan garanaynaa dhankaa markaa waa ma la dhaho kuumadaha nagu badan marka waxaan leeyahay kuumada waa inii salaame si gooni aan igu salaame markaan salaanta ka baxo waxaa inaan u mahadceliyo aan rabaa suldaankii maanta xilka wareejiyey suldaan waxaan ku leeyahay waa mahadsan tahay reerkan si wanaagsan baad mataqaanaa ugu shaqaysay aad baan kaaga mahadcelinayaa markaa intaan ka baxo waxaa kaloon mataqaanaa u mahadcelinayaa oona ku soo dhawaynayaa suldaan nimcaan waxaan leeyahay waxaa tahay qof dhalinyaro ah qofka markuu mas-uul noqdona dacaayad badan baa iska jirta waa lagu dhaliilayaa wax badan baa lagu dhahaa waxaan rabaa inaad u dulqaadatid waxaan rabaa si daacadda inaad ugu shaqaysid reerkan annaga waxaan ugu imaanay waddankeeni xalfadan waa adiga sababta waxaan rabnaa reerkan si ilaahay ogi inaad ugu shaqaysid waxaa kaloo jirta gabdhaha inaad ogaatid gabdhahaan maanta meesha ka qaylaa maanta dhan markaa halkaa fidhi gabdhahaan fiirinayo maadaama codka gabdhaha aan ku hadlaayo gabdhaha si gooni u ogow waa inaad gabdhaha ogaataa marka waxaan leeyahay warkii badnaa iyo hadalka badnaa dad badan baa qaatay waktigana uu nagu yaryahay waxaan leeyahay suldaanow joogoo jir ilaahay garabkaada kuma garab galo waxaan kaloon leeyahay muraadkaada allaha sahlo xaqa allaha ku tuso waxaan kaloon kula guuleyso